عليكم أصحابتا maalin wanaagsan isku soo noqod wanaagsan muddo ayaa ka maqnaa hawada Ramadaan iyo bishii barakeysan darteeda insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar oo ku saabsan cudurkan adduunyada dhan haligay go'doonka geliyay adeeg walba marka insha Allah waxaan ku soo qaadan doonaa waxbarashada adduunka sida uu saameeyay marka insha Allah wax yar adin tusi rabaa hadda horta xog ay UNESCO soo saartay ku dhawaad waxay dhahdeen 363 milyan oo arday adduunka ku nool ayuu saameeyay cudurkan COVID-19 ama cudur coronavirus la dhaho ardayda uu saameeyayna inta badan waxay isugu jiraan kuwa noloshoodu kala ahayd kuwa dabaqada hoose iyo dabaqada sare iyo dabaqada dhexe waa ogtahay adduunyada waxa loo kala nool yahay saddexdaas loo kala nool yahay marka sidaas darteeda kuwii high income ka ama wax badan ay soo gali jireen oo business iyo waxa haystay iyo kuwii dhexe ayagana ku xigay kuwaas iyo inta badan ma saameynin oo way awoodaan inay online qaab casri ah waxbarashada ku bartaan sidaas darteeda marka waxa aad marka ay u saameysay caqabad weyn ugu noqotay reerihii dabaqada hoose income yara ama wax yar ay soo gali jireen oo nolol maalmeedkooda kor la diradayay sidaas darteeda wuxuu saameynta ugu badan ku yeeshay kuwa dabaqada hoose sidaas darteeda maadaama uu jiro cudurkaas sidaas darteeda la dhahay waxbarashada lagu barto qaab casri ah adigoo jooga gurigaaga iyagana aysan awoodin marka horena ay ciyaalkooda geeyeen iskuulada public ah aan private ka ahayn mana awoodaan aaladda lagu kulmo internetka sidaas darteeda ay waalidiin badan iyo caruurtooda caqabad ku noqotay inay sii wataan waxbarashadooda sidaas darteeda marka lagama maarmaan in dadka ayaga ah loo danqado oo lagana hortago cudurkan si dadka badqabkooda loo badbaadiyo si loo helo adeegyadii xayirmay cudurkan uu aafiyay si dib loogu helo sidaas darteeda waxaa loo baahan yahay in wax badan la taxadaro lalana dagaalamo sidii looga hortagi lahaa intii hadda uu saameeyay uu saameeyay intii uusan saameynin inta xadar badan laga muujiyo ayaa wanaagsan sidaas darteeda cid walbana xil ayaa ka saaran marka nin walba dhinaciisana inuu ka xafido oo ka istaago ayaa wanaagsan marka sidaas darteeda waxaan leenahay dadaalka dhinac walba laga badiyo waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh